baadhitaan ay samaysay warbaahinta Al-Jazeera ayaa daha ka qaaday taageero baaxad leh oo dowladda Imaaraadka Carabtu la garab istaagtay dowladda dhexe ee Itoobiya si looga adkaado xoogagga mucaaradka. Sawir satellite-ku qaaday oo ay heshay idaacadda Al-Jazeera ayaa muujinaya in dowladda Imaaraadka Carabtu ay taageero militari oo ballaaran ku garab istaagtay dowladda dhexe ee Itoobiya. Sanadan ciidan ee Al-Jazeera daha ka rogtay ayaa waxaa ka mid ah diyaaradaha drone-ka. Baadhitaanka ay samaysay warbaahinta Al-Jazeera ayaa lagu sheegay in intii u dhaxaysay bishii Sebtembar iyo bishan dhammaadka ah ee November ay Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta iskaga kala goosheen ilaa iyo 90 duulimaad oo aan caadi ahayn, kuwaasoo la qariyay meesha ay ka kacayaan iyo meesha ay ku degayaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa howlgalkan ballaaran ee taageerada sanadda ciidana fulisay iyadoo isticmaalaysa shirkado xamuul oo laga kala leeyahay wadamada Spain iyo Ukraine. Shirkadda Isbaanishka ah ayaa muddo bil gudaheed ah 50 duulimaad oo xamuul sida taageero militari kaga dhex samaysay wadamada Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Sidoo kale, shirkadda laga leeyahay dalka Ukraine ayaa samaysay 39 duulimaad oo xamuul ah, kuwaasi oo sida hub kala duwan oo ay dowladda Imaaraadka Carabta ku taageerayso dowladda dhexe ee Itoobiya si looga adkaado ciidamada mucaaradka oo maalinta ka dambaysa dowladda dhul cusub ka qabsanaya. Sawirrada uu satellite-ku qaaday ayaa muujinaya in diyaarado ciidan oo laga keenay saldhigga Iswehan ee magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta laga dejiyay saldhigga Hermeda ee ku yaala koonfurta Addis Ababa. Diyaaradahan ayaa waxaa ka mid ah nooca uu Chinese-ku sameeyo ee loo yaqaano Wing Loop Drone, taasi oo markii ugu horreysay uu satellite-ku qabtay iyadoo taala saldhigga Hermeda. Sawirrada satellite-ka ayaa sidoo kale muujiyay shixnad ciidan oo laga dejinayo mid ka mid ah diyaaradaha xamuulka ee loo yaqaano Ilyushinka. Sawirrada uu satellite-ku qaaday ee ay warbaahinta Al-Jazeera ku soo bandhigtay baadhitaankeeda ayaa sidoo kale waxay caddeeyeen inaanay shaqaynaynin saldhigyadii militariga Itoobiya oo ku lahaa magaalooyinka Samara iyo Aksum. Kadib dagaalo halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xoogagga TPLF, kuwaasi oo sheegay inay masaafo 200 oo kiiloomitir ah u jiraan caasimadda Addis Ababa. Haddaba, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu ka qayb galayo dagaalka lagula jiro TPLF isagoo tagay jiidda hore ee dagaalka sida warbaahinta Itoobiya sheegtay. Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu dagaalka madambaysa la galo xoogagga TPLF isagoo isticmaalaya wax alle wuxuu awoodhayo. Dhinaca kalena, afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka Abiy Ahmed. Badiba waxaa guuldaraystay dadaaladii lagu doonayay in labada dhinac la isugu keeno oo nabad lagaga dhex dhaliyo, waxaana ugu dambeeyey dowladaha South Africa iyo Kenya oo maalintii shalay dowladda dhexe ee Itoobiya iyo mucaaradka ugu baaqay inay xabad joojiyaan oo miiska isugu yimaadaan.